بسم الله الرحمن الرحيم مانتا تضبي تمنكي بشي أفراد لبض كوني تضوء سيدا هالكا التورادة كاركتان وعاد هالكا كاركيسان شعب صوماليات oo isugu soo baxay magaalada London ayagoo ka soo horjeeda damaaciga wadankaasi Kenya akhyaar fara badan oo halkaan ka aragtaan sidaad u jeedaan waa 17 bishii afraad 2007 maxaad leedahay Mele Sanaawi iyo madaxda Soomaaliya keemaad leedahay waa wadani ducaale waxaan leeyahay madaxda Soomaaliya iyo Mele Sanaawi Menes ayaa ah ruuxaantii nin wadani ah sababtaan taa u leeyahana waxa weeye Mele Sanaawi ma ogola dhulka Addis Ababa ee asagu xukumay in la duqeeyo ama in dhibaato loo geeyo laakiin madaxda Soomaaliya raalli waxay ka noqdeen inay dalkooda burburiyaan baabi'iyaan cadow u soo hogaamiyaan madaxda Soomaaliya waxay raalli ka yihiin wax kasta oo ku dhacaya dhulka Soomaaliya inay iyagu raalli ku noqdaan Menesna hal xabad ma uu ogola in Addis Ababa lagu dhifto ama lagu rido marka maxaa madaxda Soomaalidu ay Kenya u tagaan Ethiopia u tagaan Djibouti u tagaan dhulka kale u tagaan oo ay bariyo ugu noolyihiin ayagoo badda weyn ee beeraha badan iyo wasta waaye ay dadku u bariyayaan waaye ay dadkooda u bari waayeen oo shisheeyaha u bariyayaan bal inta wax ka dheh wallahi waxaan ka leeyahay taa horta waa doqonnimo aad iyo aad baan leeyahay ragga Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed ma wada madaxda Soomaaliya ugu jirta macnaha ma garayo dhulka Soomaaliya uu yahay dhul barwaaqo ah oo maxay ahayd wax walba inay madaxdoodu bariyaan dalka waa uu doqonnimo inay Kenya bariyaan inay Ethiopia bariyaan Ethiopia oo kaliidata dhulka East Africa maanta ama Africa oo dhulka ugu liita waa dhulka Kenya markaas minka Soomaaliya madax ka noqdo uu diyaarad u raaco Mele Sanaawi u taga ninka wuxuu dhisaa waxaan leeyahay madaxda Soomaaliya dalkiina dhisa dalkiina habeeya daayirada wasalaam calaykum mid kala rabo waaye dadka Soomaalidu ee Tanzania Uganda Kenya Djibouti iyo wadamada shisheeye u dhisayeen dalkooda u baabiina xabada ugu hayaan dumarka u barakacinayaan carruurta u leynayaan waaye Ethiopia maanta waa ka baxdo waaye Soomaalida isu leynaysa waxaan leeyahay taa maxay ahayd waa doqonnimo ayadana kaleeto oo run ahaantii runtii waa waxyaabaha aad loola yaabo Soomaaliya maxay ahayd dad wadani ah ma ahan waa dad jecel inay mar walba building gareeyaan dalalka kaleeto ama meel maxay ahayd kaleeto ay dhisaan oo marnaba aan maxay ahayd dalkooda uma ay bisla oo waxa ku yar wadaninimada taa ayaan biliif gareysanahay Soomaaliya aad iyo aad baan ka madalnaa Zakariya maxaad maanta isleedahay dadka Soomaalida waa u jeedaa qaab daradooda waa u jeedaa dhibaatada jirta maxaad u malaynaysaa dadka Soomaalida in madaxooda lagu bedeli karo halo rooba daayo u jeedaa Soomaalidii aan sidahay way imanayaan ma iman badii Soomaaliya la qaybsanaya hore dhulkiiba loo qaybsaday marka ma garan karo Soomaalida waxa kaliya ku fahmi kara maqan Quraan waa loo sheegay gabay waa loo sheegay hadal waa loo sheegay ma garan karo waxyaabaha ay ku qasbayaan aad baan u caraystaa وفيلا مظاهرات ممكن نقول لك في قدامي وايوان كني الجبل إمام مظاهرات وايد الصومال يقدرن كريم مودني دق واحد يعني شخصي أنا خاص عن طلعنا مجنون وين يدري ما صومالي وحن كعصن يا صومالي هذه فهمي كراني تودينا كذا قيمة لا إني ماذا المظاهرات أنا قرنت حيسين وسمين Mele Sanaawi مثل هذا Mele Sanaawi وكأودنسية مركي لو يقرأ الصومالي وودني ويان ضد كيسي تلكيس أي اسكت بريتي وودني نعمة waxaan xunkaay Soomaalida maxaa u diiday marka ragga Soomaalida iyo muslimnimo sheegana waliba Soomaalimadu ma qiyaas karo waxa u diidi karo waxaan malaynay wadaniyada ku yarba ama laba bari ma inay wadaniyiin ahayn taas nin walba Soomaali oo madax muxuu doonaa inuu xogaa lacag ka qaato wadanka uga tago ama dadka ugu laayo waa dhaqan soo jireen oo runtii taariikhda Soomaalida ceebko sanadii ugu dambeeyna ka dhaxlayno nimanka reer galbeedka waana mid kaliya lagu kala qaybinayo maxaa malaynaysa signal dhalinyarada u diri karaysaa sida dhalinyarada inay ka soo qayb galaan mudaharaadada inay yimaadaan mudaharaadada noocan oo kale inay yimaadaan marol modelka ay Soomaalidu maanta madaxda Soomaalida ay sameynaysaa mise waxaad leedahay dhalinyarada Soomaali mid ka duwan hal yimaadeen mid ka duwan oo ka fiican oo ka yani dhaqdhaqaaq badan kana wadanisan inay leeman karaan ma qaba waana fursad kaliya ay leeyihiin wayaan aad baan ka madalnaa